Halyeeyga kooxda kubadda cagta ee Liverpool Steven Gerrard ayaa la sheegay in uu garoomada ama maaliyadahu ay kala bedesheen ciyaartooy magaca ku leh kubadda cagta kuwaas oo aysan ku jirin ciyaartooyda u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Kabtan Steven Gerrard ayaa la sheegay in marnaba maalin inuusan wax fanaanada ka bedelan ciyaartooy u ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee Manchester, isagoo kooxdaas ka soo horyimid kulamo aad u dhowr ah kana dhaliyay ilaa iyo 9 gool. Kabtan Gerrard ayaa ciyaaryahanada uu garoomada ay kala bedeshteen waxaa ka mid ah Gianluca Buffon, John Terry, Xavi Hernandez iyo ciyaaryahanka weyn ee reer Talyaaniga Andrea Pirlo. Paul Scholes oo ay kooxda Manchester United xulka England ka wada ciyaareen ayaa la sheegay in marnaba uusan kala bedelan, laakiin Frank Lampard ayaa ka mid ah ciyaartooyda Gerrard uu ka bedeshay fanaanadaha. Sidoo kale kabtankii hore ee Arsenal Thierry Henry ayaa qayb ka ah, waxaana sidoo kale la sheegay in Thierry Henry iyo weliba ciyaaryahanka kale ee weyn ee Ronaldinho qayb ay ka yihiin ciyaartooyda uu ka bedeshtay kabtan Gerrard garoomada ama maaliyadaha. Alessandro Del Piero, Zlatan Ibrahimovic, Lilian Thuram iyo ciyaartooy dhowr ah uu ka horyimid ayaa sidoo kale Gerrard uu ka bedeshtay garoomada, laakiin xafiltanka iyo waayaha soo jireenka kooxda Liverpool iyo Manchester ka dhexeeya awgeed Gerrard marnaba ma uusan go'aansan inuu wax garoomada ka bedeshto ciyaartooy United u ciyaaraysa. Geesiga Anfield ayaa sidoo kale la sheegay in xafiltankiisa ciyaareed ee kooxda Liverpool iyo Manchester uu gaarsiiyay heer aad u sareeya. Kabtan Gerrard ayaa sidoo kale waxa uu dhowaan soo xushay ciyaartooydii uu islahaa ama shaxdii ugu adkeed uu wajaho, waxaana uu shaxda ku soo daray ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka wadanka Talyaaniga Alessandro Del Piero, waxaana sidoo kale ku jira Goldabi oo Napoli ka tirsan oo u ciyaara xulka qaranka Senegal. Steven Gerrard ayaa waxay taageerayaasha Liverpool ku jeclaadeen in uusan wax jilaaca u muujin kooxda kubadda cagta Manchester United ciyaartooyda u ciyaaraysa, waxaana ciyaaryahanka marnaba uu go'aansaday in uusan wax garoomada ka bedelin ciyaartooy kooxda Manchester United qayb ka ah. Gerrard ayaa muddo waxa uu ka horyimid kooxaha waaweyn ee Premier League oo ay Chelsea, Arsenal iyo weliba United qaybta ka tahay iyo City, laakiin ciyaartooyda Man United ayaa la sheegay in ciyaaryahankan marnaba aanu ka bedelan wax garoomada ah. Steven Gerrard ayaa ciyaartooydii waaweynaa dunida soo maray waxay ku tilmaameen inuu yahay Ingiriiskii ugu wanaagsanaa ee kubadda cagta u ciyaara in muddo ah.